دكتور آدم محمد عيسى قادالة waxa la guddoonsiiyay abaalmarino waxaana uu ku qaatay sida uu dadka Soomaaliyeed iyo muhaajiriinta nooc kasta oo ay yihiin ugu gargaaray ugana soo dhaxbaxay kumanaan dad Soomaaliyeed iyo muhaajiriin kale oo tagay dalka Canada mar kale waxa la siiyay shahaado kale oo la xiriirta u shaqaynta dadka kala duwan ee dunida ku nool tusaalaha wanaagsan ee uu noqday kaas oo la guddoonsiiyay waxaana uu kamid ahaa dadkii ugu waxtarka fiicnaa ee shahaadadaasi helay ما جرين عيد كلا أو صوماليات أو لبنان شهادة بكوجولة ستي. آدم محمد عيسى قاعد عليه وشيخ سياسي صنفله برشلة الصوماليات سوى نقول تقانه وقرمشة ولا ليس الصوماليات كنسوا الشقية لحية لواتك سنة يلا صورنا في قرمة كيس متبحين تشعبك أي داشرين عبارها دقال الله السكرية قرن شبكي ومدن. On February 2nd, 2017, we feel that the number of people in need of humanitarian assistance has increased from 5 million in September 2016 to 6.2 million between February and this June 2017. This is more than half of the current population of Somalia. شيخ آدم محمد عيسى waxa uu qayb ka noqday gargaaradii ugu horeeyay shacbiga Soomaaliyeed la soo gaareen dadka ay waxyeeladu ka soo gaartay musiibadii tsunami ee ku dhufatay xeebaha dalka Soomaaliya sanadkii 2004 isagoo noqday qofka kaliya ee Soomaaliga ee sameeyay qareemid dhameystiran oo dadkaasi kana dhisay magaalada Xaafuun ee bariga fog ee Puntland guriga ugu weyn ee ilaa maanta kan ugu muuqaalka dheer ee magaalada Xaafuun waa naftaada ka qaad oo naftaada u qaad markaan oo kale walaalnimadu markay soo baxdo weeye aad iyo aad baan waxaan ugu amaanayaa dadkii walaalaha ahaa oo habeenkii dhaweyd 29 bishii January nagala qayb galay fundraising-ka iyada ah waxaan aad iyo aad ugu amaanayaa wiilal iyo gabdho odayaal iyo hooyooyin iyo waxgarad iyo culimo iyo dhalinyaro intii dad ka soo qayb gashay amaan aad iyo aad u badan baan u soo jeedinayaa waxaan leeyahay ilaahay idinka abaal mariyo wanaagii aad sameyseen Dr. Gaadale waxa uu si weyn ugu foogan yahay ka warqabka dadka leeyahay qaba baahiyaha gaarka waxaana uu ahaa shakhsiga kaliya si samafal gargaar biyo dhaamina oo xoog badan ka fuliya gudaha Soomaaliya xilligii lagu jiray abaartii sima ee gabi ahaan baafaysay dalka waxaana kamid ahaa gobolada Mudug, Sool, Nugaar, Karkaar iyo deegaanka Burca ee Soomaaliland halkan waxaa noogu yimi biyo dhan 16 boodood oo noo keenay Sheekh Aadan Gaadale أولاً الله ما محل مر لبعض هذا نبيها نوكين آدي آد بان وقمت علينا مركو وادي مرة مرسد هذا بيا حلالة وسيدا باورتو لدعي سقوها يسو وأذكر السوقاري كواسا وهري حاجينا ونشيخة وسياسية بابيها سوق حي إلى كل صوصي حاجة waxaan leenahay waa ka guddoon Sheekh Aadan oo deeqdan biyadaanka hogaaminayay waxaan leenahay Ilaahay miisaanka xasanaadka kuugu daro intii adiga kugu wehelisay oo hawshan soo qareentayna waxaan Rabbi ka baryaynaa iyagana inuu xasanaad ka siiyo maxaa yeelay waa meel xilli xasaasiya maalin xasaasiya baahi taagan oo dad khatar ku jira oo muslimiin ah oo u baahan waxa dhagahayga soo gaartay in muddo wadanku abaar ahaa waxa loogu baahi badan yahay ay biyihiin baadkuna uu ku xigo dabcan arrimaha aan rabo in ay raado waxa dhici karta in wax la helo ama dad Ilaahay haydin ku soo dhiibo ama idinku dhexdiina ka urursada halka shay aan idin kula dardaarmi lahaa wuxuu yahay wixii aad urursataan ama isu keentaan inay noqoto wax si cadaalad ah oo hufan loo qaybsado oo dadkana loo soo gaarsiiyo ani maanta halkan waxa ay keentay xoogaaga biyaha waa idin soo dhiibi karay dhul aanan waligay arag iyo boor iyo daal iyo kharash iyo baabuur waxay ahayd oo iigu weynaa waxa yarka ah oo aad bixiseen inaad ku ogaataan meeshii loogu talagalay miskiinkii loogu talagalay qofkii baahnaa reerkii loo qaybiyay magaceeda aad u soo qortay sheekh iyo shariif midna kama ogolaan inuu iga geeyo دكتور آدم محمد عيسى قادالة waxa uu gargaar biyo gaarsiiyay degmada Galdagob ee gobolka Mudug oo ay ka taagneed xaalad biyo la'aan oo xoog badan markii ay socotay abaartii sima sidaas oo kalena waxa uu gargaarkiisa si laba jibaaray xilligii la gaaray bishii barakaysneed ee Ramadaan kuwa la eeg meelahaas aan ku qaybinay kuwa ka badanna waa iman doonaan
idinka inaanu maanta halkaan idinku nimaanno oo socodkaygii koobaad aan biyo idinla qaybsado ilaahayna waa ugu shukriyayaa subxaanahu wa tacaala saanfala gaadaale waxa uu kaloo gargaar degdega gaarsiiyey boqolaal qoys oo xoolo beelay abaarihii dalka ka dhacay kadib sannadii la soo dhaafay gurmadkan ayaa isugu jiray deeqo kala duwan oo uu gaarsiiyey dad waxyeello ka soo gaartay xaaladihii kala duwanaa ee dalka soo wajahay kaamka alaale ee degmada Galdogob waxaana maantiito marti noogu ah hay'adda Somali Relief Network of North America hay'addaas waxay 6 bisha hadda ka hor noo ballan qaaday oo ay bixinaysay muddo 6 bisha laga soo bilaabo June ilaa iyo hadda 20gii oo soonkan ay uga faa'iideynaysa 143 qoys 143 qoys ayaa raashin maalinta habeenka uu karsanayo oo suxuurtii iyo afurkii isugu jira ayay siinaysa muddada sidaas oo kale agoomaha iyo dadka danyarta ah maalmaha farxadda in laga farxiyo waa qayb ka mid ah waajibaadka qof kasta saaran qaybna ka noqdaan bulshada waxayna ka mid ahayd arrimaha ilaa hadda uu ku guulaystay sheekh doctor aadan maxamed ciise gaadaale magaalada Kismaayo ee xarunta Jubbaland ayaa ka mid ah meelaha gargaarka la gaarsiiyey boqolaal qof oo isugu jira dadka lixaad kale ee qaybo ka mid ah jirkoodu aysan dhammaystirnayn iyo waliba sidoo kale dad maata oo kala duwan ayaa gargaar aadantinimo la gaarsiiyey alxamdulilaahi rabbil caalamiin walaalaheen khayrka aan siiyeen jaaliyada ah oo hambalyeena ilaahay khayrkood Allah na siiyo Somali Relief waxaan qaatay raashin baa lisii raashinkaas ugu jira bariis iyo bur sokor iyo baas iyo saliid baa lisii khayrkood Allah na siiyo ilaahay inta baxsatay oo igana naqalqaaliyana ilaahay khayrka Allah siiyo bismillaahir rahmaanir rahiim waxa farxad weyn noo ah maanta oo khamiis ah in wala qaybiyay magaalada Kismaayo dhexdeeda raashin isugu jira bur bariis saliid sokor nugula siiyey taas oo aan farxad si aad iyo aad ugu farxsanahay inay noo soo dhiibeen walaalaheena ku nool Canada aad iyo aad baan ugu farxsanahay waxaan rajaynaynaa Somali Relief wa barakaatuhu waxaan u mahadcelinaynaa walaalaheen na soo gaarsiiyay deeqdaaneetu Somali Relief oo Canada degan assalaamu calaykum aad iyo aad baan runtii ugu faraxsannahay barnaamijkan raashin qaybinta oo galabta halkan ay ka bilaabeen sheekh aadan iyo ururkiisu run ahaantii waa markii noogu horreysay oo aanu la kulanno dad u talagalay inay dadka cuyaamiinta ah ay wax siiyaan barnaamijtan deeq gaarsiinta dadka walaalahaya ah ee liita oo maxaan ku iraahdaa isugu jira dad dhibaato ka gaartay ama dhegaha ama indhaha ama lugaha ama qaybahaas oo la isku daray beelay dadkaasoo isugu jira wiilal iyo gabdho iyo dad waayeel ah iyo caruur nooc walba leh dadkaasoo dhinaca kalena runtii ah dadka ugu tabarta daran inta aan soo maray kolley anigu hadda aan arkay dad intaan arkay maxaa yeelay iyagoo naafo ah bay haddana waxay yihiin dad fuqara ah oo waxba gacanta ku haysan barnaamijkan ujeedadiisu waxay tahay waxa aan galabta annagu u qabanayno ka sokow in ummadaha faraha badan ee barnaamijkan muuqaalkiisa iyo maqalkiisa u gaari doono ay u naxariistaan walaalahooda Soomaaliyeed ee dhiban gaar ahaan magaalada tan liiskana la soo gaarsiiyay wuxuu gaari karaa ilaa iyo 900 oo qof magaalada Qardho ayaa sidaas oo kale laga qaybiyay xoolo kala duwan oo loo qaybiyay dadka soo barakacay iyo waliba sidoo kale dadka ka yimid dalka Yemen oo ay dagaaladu soo barakiciyeen deegaankan aan taaganahay waa meel lagu qaybinayo lagu tawsiicinayo 100 neef oo ari ah oo xiya
boqolkaan neef oo ay waxa weeye ugu deeqeen ahlul yaman naasixiin dadka ka soo xabadu ka soo cayrisay yaman waxa ugu deeqay sheekh aadan maxamed ciise gadac gadaale uu ku soo diray waxaan rajaynaynaa intii u horreysay weeye waxaan rajaynaynaa wax ka badan insha allahu baan ka rajaynaynaa الصومالية على ما قدموا ومن أضحية العيد راس غنم ولاية كولتران أنا وقعت لها مقع يمريكا وحن مهدنا ليف أمريكا جمعية صومالية ليف أمريكا sheekh aadan maxamed ciise gaadaale waxa uu tegay magaalada Burco ee gobolka Togdheer ee Somaliland si uu murugada ula qaybsaday xaaladda xanuunka badan qoys Soomaaliyeed oo aabihii mas'uulka ka ahaa uu isdaldalay markii xoolaha ay dhaafeen abaartii samee gabi ahaanba ku dhufatay guud ahaanba Soomaaliya waxaana deeq lacageed sheekhu uu ku wareejiyay qoyskii dadka ehelkaas iyo waliba sidoo kale caruurtii kala duwanaa ee uu ka geeriyooday waxaan aadan maxamed ciise oo mas'uul ka ah organization-ka la yiraahdo Somali Relief Network of North America saldhigiisuna yahay dalka Canada organization-keenu wuxuu ugu deeqayaa $2,000 haddii la yiraahdo hadda right now oo lacagteedii hadda aan jeebka ku hayno bixinayno waxaan kaloo raadinaynaa dad kale oo fara badan inay barnaamijka ka qayb qaataan amalka aanu rabno dadka walaalaha iyo qoyskaas in loo sameeyo waxa weeye guri ay leeyihiin in loo dhiso inanka iyo xaaladihiisa markaan idinka warramo anigu waxaan ahay inanka geeriyooday ee qaasim yuusuf aabihii 4 carruura waa 4 tubahab la yihiin iyo gabadha oo xaamilo ah iyo adduun la'aan wixii uun fikir caynkaasa uunbaa ku furmay anigoo u mahadnaqayaa dabad maayo ummaddan islaamka ee noo soo gurmatay qaasim yuusuf axmedna anigaa dhalo waa inankay waan cararayo gabadhii bay igu hortay maxaa dhacay ninkii uu dhintay bay tiri na naftu miyay ka dhacday haya way ka dhacdo geedku kala shay intaan kaga gooyan goon deegaanada qarxis iyo ayl ayaa ka mid ah meelaha gargaarka biyo iyo waliba sidoo kale xoolaha nool laga qaybiyay aadan maxamed ciise gadaale aadan maxamed ciise annaga haddaan raa qarxisnay aad buu loogu adeeg yahay ama loogu culis yahay waayo waa mas-uulka wadada dangor iyo ayl isku xidha mas-uuliyadda waddo wey haatan insha allah billahi kariim ma aha magaciisa nagumana cusba waxqabadkiisa wax nagu cusub ma waxqabadkiisa waa nagu badan yahay iyadoo ay u weyn tahay waddada dangor iyo ayl isku xidha way ku mahadsan yihiin aad baan uga mahad celinaynaa arrintan runtii waa arrin muhiim ah oo dadka maanta oo kale in udxiyada loo qalo oo laga farxiyo dadka baahaysan runtii ciddii la baxday oo uu madax ka yahay doctor aadan maxamed ciise runtii uga mahad celinaynaa waxaan kaloo leenahay dadka masaakiinta oo maanta aan qalan karin gowraca aan samayn karin in ay ka faa'iidaystaan oo loo qaybiyo aadan ciise gaadaale waxaan leenahay intii soo dhiibatay ajar iyo xasanaad allaha ka siiyo miisaanka xasanaadka allaha ugu raajiciyo intii qaadato oo cuntana ilaahay dhacaama shifaha uga dhigo annaguna waxaanu leenahay mar labaad iyo mar saddexaadba waad mahadsantihiin ilaahay baa mahad iska leh aad iyo aadna waxaanu ugu hambalyaynaynaa ugu mahadnaqaynaa maanta oo maalin aad u qaali ah ilaahay idanka ilaahay jaasa khayra ka sii jaasa khayr allaha ka sii ilaahay idankiisa adduun iyo aakhiraba allaha ku xoreeyo iidii uu la baxana allaha ka aqbalo ilaahay idankiisa caafimaad allaha siiyo ilaahay idankii idinkana khayr allaha idin siiyo isagana caafimaad saliicada allaha siiyo sidaasaanu ilaahay uga barino salaan bacdigeed ilaahay irsaqa uu soo dhiibay oo ilaahay u soo dhiibay mid ka badan iyo mid 1,005 iyo siyaada ilaahay asiiyo in la walaaleeyo bulshada nabadana lagu bixiyo dadaal kasta oo loo baahan yahay waa mid ka mid ah filashooyinka laga fasho qof kasta oo hogaamineed doctor aadan maxamed ciise ayaa door weyn ka ciyaaray heshiisiinta ama soo afjaridda colaad aad u daba dheeraatay oo u dhexaysa beelo walaalo ah oo wada dega dhulka loo yaqaano hawdka ee u dhexeeya xuduudaha gobollada nugaal sool iyo ismaamulka soomaalida ee dalka etoobiya isagoo lafdhawar u ahaa taabagelinta heshiiska waara ee ay maanta ku wada naaloonayaan shacabka deegaanadaasi qodobadani shirgudoonkii isimada iyo guddigay qaybiyeen
siday u soo qoreen baannu u qaadannay siday u dhaheen baannu u maqallay waa ku qaadannay waa ku guuxnay waa aqballay waa islaaxuna miisaan weyn buu ku leeyahay diinta islaamka in laga shaqeeyaana waa waajib sharci ah inta ka shaqaysay iyo inta soo ajiibtay dhammaantood cibaaday ku jiraan ilaahay waxaan ka baryaynaa niyaddeenna iyo ballanqaadka la ballanqaaday oo gacanta loo taagay in uu ina waafajiyo anigu waxaan ka imid Canada maalintaan soo galay sabtidii bay diyaaradda aan ka soo galay press release-kii aan qabtay wuxuu ahaa labadeena gacmood walaalaheena qoyskeena dadkeena dhigooda aan ku haboogana aan kala joojino hadda isla habeenkii subaxii baan soo kala Suldaan Saciid baan ugu hormaray islaan Ciisaan ku xijiyay ikhtiyaarta aad aragteen oo dhan baanu wadnay oo hawsha karkarinayna usbuuc dhan telefoon dir wax walba dagaalka in la joojiyo dadka walaalaha in la midayo Tukarraqa waa haatan iyo difaaca dalka gaar ahaan Tukarraq maalmihii ugu horeeyay gaadaale waxa uu shakhsi ugu horeeyo gurmad degdeg ah u fidiyay ciidamada difaaca Puntland xilligii la qabsaday Tukarraq waxa uu dhinaca kala gutay waajibaadkii ka saarnaa in loogu yeero dhinacyada haya in wada hadal lagu dhameeyo xaaladda Soomaaliland ugu baaqay in ciidamadeeda kala baxaan sohdimaha Puntland ee ku soo xadgudbayeen 10 sano ee la soo dhaafay ana waxaan leenahay dadku nabad buu wax ku noqon karaa inaan ku wada waansano weeye dagaaladii 91 soo bilowday oo waxba laga gaari kari waayay wax ku burbura mooyaane waxba aysan ku dhismin dagaaladaasi dan ma aha haddii dadka wax dhex maraan ama qof wax tabanayo ama qolo wax tabanayso ama gobol wax tabanayo waxaa habboon in la isla fariisto oo miiska wada hadallada la isugu yimaado oo hadday labada wax kala tabanaya iyagu dhammaysan karaan ay dhammaystaan haddaysan iyagu dhammaysan karinna dad kale oo walaalahooda oo badan oo Soomaaliya oo labadaba dhinacba khayr la jecel baabuuxa ay dhex galaan oo nabad lagu dhammaysto ma weynaan ka waantoobin 30 sano maalin walba qofkii xoogaa isbidaa inuu dagaal qaadayo arrinkaa inaan ka waantoonnaba inoo fiican oo dhammaanteen aynu arrintaa ka sii fogaano oo aan wax ka qabanno dhismaha wadada Ayl iyo Dongoroyo ayuu ahaa qofka kaliya ee fakray Dr. Aadan dalkayga u deegaan khayr leh oo daahira tahay dabaylo iyo dhaxan malihid iyo diirsimaad dhibaye dabeexoodon abaad leedihiyo damal la hoos weyne dayaxiyo cadceedaadu waa daalacnaa silaane dariiqiyo jidbaad leedihiyo dawya toora dadtooraadan gaadaale iyo doorar baa kacay dadtooraadan gaadaale iyo doorar baa kacay daraahim dhaqaaliyo waxay dollar ururshanba dambiil gaara kuma kaydsan iyo dana ha khaaskoode daacadiyo dadaalkoodiiba maanta daahira aadan gaadaale waxa uu door weyn ku lahaa hirgelinta dawladda kaabayaasha dhaqaalaha ee Puntland waana maskaxdii ka dambeysay dhismaha wadada laamiga ee isku xiraysa Ayl iyo Dongoroyo taas oo ay boqolaal sano ku laanoonayeen shacbiga Soomaaliyeed waqti maal iyo maskax badan ayuu Dr. Aadan geliyay dhismaha wadadan oo ay hadda iska kaashanayaan bulshada dawladda iyo shirkad laga leeyahay dalka Shiinaha waxaana markii ugu horeysay uu ku bilaabay wajiyadii ugu horeeyay kuna dhameeyay iskaashiga isaga iyo bulshada uu hormuud u ahaa muddo dheer boqolkiiba 30 baa wadadii inoo dhisantay ilaa hadda waqtigan la joogo labada qaybood oo labaad waa qaybta carratuurka dhismaheeda iyo markaysa jaymarinta iyo qaybta laamiga dhaqaalaha ku bixi doona isaguna aad iyo aad buu u badan yahay dadkii hawsha soo qabtayow maanta waxaad geesinimo ku qabataan baad aragtaan shalay hadday ahayd oo aad lahaydeen war waxaan masuuroobaya war wadooyinkan Soomaaliya ka dhisan inta wada dhisan oo wada yar yara waxa noo dhisay Talyaani oo waxa la dhisay Chinese oo waxa noo dhisay caynka wada aan dawladii wadan baa cid kale wax ka qaban kartaa waxaan rabnay warka inaan beenayno oo niraahno yani who is the government it is us annaga dawlad ah annaga dadkii wax qabanayay ah annaga ku filan annaga yaana wata Allah
ilaahay waana wata ilaahay baa noo fududeeyey waxaan dawladna qaban karin ay challenge every government iyo dawlad kastoo timaata oo intaa in la eg iyo waqti intaa in la eg ku qaban karta iyo dhaqaalahan ku qabanay if you get in the world waxaanu bixinaynaa xaal iyo xoolo mana dhici karto historygana kuma jirto dadaalka uu muujiyey shaqaadan aad iyo aad waana aqin anigu hadduu wax bilaabo waxaan rajaynaynaa mashaariic ka waaweyn buu dhameeyey tanna ina dhammaan doonto laakiin xilkeena saaran baa wuxuu yahay oo ilaahay ina amro ina faray inaan yacni waxa weeye samayno waxa la yidhaahdo watacaawanuu cala albiri waataqwa walaa tacaawanuu cala alismi walcudwaan ilaahay waa markaa bixiyey inaan isu kaalmaysanno wax wanaaggu ku jiro wuxuuna yacni waxa weye aan iska reebno oo fasahaadku ku jiro marka waddada tani isweydiin mayno waa mashaariicda khayriga ah oo waqafka ah oo aan dhammaan weeye sadaqa jaariya oo soconaysa weeye marka qof walba ilaahay inugu dhowaado si dheer ayuu uga fukaray gaadaale waddadan inay noqoto mid halbowlo u noqonaysa ganacsiga mandiqada geeska afrika ee sida degdega isku beddelaya waxaanu xilligaas oo hadda laga joogo sanooyin kasii fakaraya isbedelada ka dhacay gobolka geesku sida ay ugu noqon lahayd bulshada soomaaliyeed suuqyo ay ka faa'iidaysto gaar ahaana suuqyada darafyada ku haya oo ay ugu horrayso kan Itoobiya dad yahowdgama wada jir bay guulku heli karaan garaadka iskaashadahan ruuxna gaacin karin gabiyahaanteen jidkaheeni ha loo guntado gudiyo debadgeedi socodkeen ayaan la gabin la'aan guusha gaaharayn guclaha ku jira anigu waxaan ugu horraysa waxaan samaynayaa waan ka hadlayaa waa laba arrimood waa arrintan mashruuca haddan taagannahay waddadan oo ah sadaqa tujaariya ninkii $1 ku darsada iyo ninkii $1 ku darsada intuba ay tahay wax uu aakhiro uga horreynayo oo wax badan baa lumiyaa waxay ku lumaan waxyaaba qaar baaba wax dembiya ku luma qaar baan la garan karin si u lunto anigu waxaan leeyahay tan maahee dhowr waddo kale ku filannahay 10 waddo waa ku filannahay idinka mahad celinayaa intii ku jirtay hawshan iyada ah oo runtii uu ugu horreeyo aadan maxamed ciise waqti badan iyo juhdi ku bixiyey guddidiisa dawladda shacabka reer Puntland meel kastoo ay joogaan gudaha iyo dibaddaba waxaan uga mahad celinayaa runtii arrintan sidii ay uga qayb galeen cid alla ciidii talo dhaqaalo waqti wax kastaba ku darsatay waa uga mahad celinaya waxaan ilaahay uga mahad celinaya in meel wax ku oola la soo gaarsiiyey anugu labada dhinacba waa maray bartan aynu taagannahay oo waddadu siday tahay aad yaabayso saacada iga qaadatayna waa maray maantoo 40 minit keligeed 40 minit keliya lagu soconayana de waa taagnahay taasina waa alxamdulilaahi rabbilcaalamiin ka qayb qaadashada xarumaha dawladda oo dib loo dayactiro ayaa ka mid ah arrimaha qaybta weyn oo ka ciyaaray sanooyinkiina dhaafay Dr. Aadan gaar ahaan isbitaalka magaalada Gaalkacyo oo lagu burburiyay weerar argagixiso ayuu dugdhiskiisa ku bixiyay deeq lacageed Dr. Aadan Maxamed Ciise waxa uu shakhsigii ugu horreeyay gargaar lacageed gaarsiiya isbitaalka guud ee magaalada Gaalkacyo kadib markii lagu burburiyay weerar argagixiso 22 walaalkeen Aadan Maxamed Ciise oo deeq soo gaarsiiyay isbitaalka guud ee magaalada Gaalkacyo runtii aad iyo aad baan uga mahad celinaynaa waxaan u aragnaa in ay yihiin dad walaalaheena oo soo gurmaday walaalaha kalena waxay u noqonaysaa dhiirigelin bay u noqonaysaa in ay gurmadkii bilowday inaan isku gurmanayno inaan isku filannahay waxaan u mahad celinayaa walaalkeen Sheekh Aadan oo ugu deeqay isbitaalka guud lacag $5,000 waxaan leenahay jasaakumullahu khayran isbitaalka sidaad arkaysaan burbur xoog la soo gaaray oo agaasimuhu nooga warbixiyey iyo dhaqaatiirtu dhibkii dhacay la iska waraysan mahayo dhibkaasna wuxuu u yaalaa ama soo gaaray Gaalkacyo gaar ahaan bulshada Gaalkacyo waxaan rajaynayaa insha Allah biidnillaah inuusan waxba saamayn aan ugu yeelan dhiirigelin waxaan ka ahayn waxaan ognahay Sheekh Aadan inuu wax badan mataqaanaa u soo dadaalay gobolada Puntland baana ku mahadsan yahay warbixinta uu bixiyay agaasimuhu warbixin dheer buu bixiyay xaqiiqadu siday ahayd buu sheegay in kastoo aragu
wixii burburka iyo mataqaanaa dhibaatada ka dhacday isbitaalkan araggeedu ka gedisan yahay maxaa yeelay dhulgariir baa lagu sifayn karaa doctor aadan waxa uu ahaa qofkii ugu horreeyey oo booqda dal iyo dibadba xataa inta aysan madaxda dowladda puntland qofina ka tegin cisbitalka gaalkacyo kana hadlin ayuu tegey oo si aan gabasho lahayn uga caddeeyey idaacadaha adduunkana qayldhaan ugu diray si bulshadu ay u hesho qiraamid dhammaystiran oo cisbitalka gaalkacyo dib loogu dhisayo kadib weeraradii argagixiso dhaqaalahaasi ma aha waa wax aad iyo aad u yar laakiin wuxuu ka qiimo badan yahay malaayiin sababtoo ay tahay inaan idin aragno oo idiin nimaanno oo idinla qaybsanno waxaani waa hadiyad iyo iska horumarine baa ka qiimo badan dhaqaalaha aan wadno iyo midkaannu mustaqbalka keeni doono labadaba haddii ilaahay yidhaahdo waxaan jeclahay qof kasta ama ha noqdo reer mudug ama ha noqdo reer puntland ama ha noqdo reer soomaaliya ama ha noqdo the rest of the humanity who are really touched by this kind of calamity to donate generously and come forward and build the Mudug Hospital one way or another. Generously, this is what I am asking each and every human being who is listening or watching my speech of today. qof kasta walaalkaya oo maqlaya waana ogahay dad badan oo saaxiib ah inaan leeyahay oo aan luqadda aan maanta ku hadlaya ku hadlin oo markay arkaan masawirkayga maanta iyo meesha aan ka hadlayo inay garan doonaan oo u soo gurman doonaan aan jeclahay in la sameeyo. Relief Network has sponsored 200,000 families, which was the number of individuals 1,000 for whole month of Ramadan for their food, and that you're talking about 29 days or 30 days of the month of Ramadan. That's we have done, and the donors who invest their funds and money in Somali Relief Network, they will have a great reward. doctor aadan maxamed ciise kuma koobno oo keliya arrimahaasi waa falanqeeyo si durugsan ula socda isbedelada siyaasadda ee dalka iyo guud ahaanba gobolka saamaynta ku leh isagoo si gaara ugu fogan ka tala bixinta marxaladda siyaasadeed ay maanta ku sugan yihiin shacbiga Soomaaliyeed wuxuuna marar badan door ka qaatay jahaynta mustaqbalka dalkan waxa loo baahan yahay dhinaca qodobka labaad qof leh maxaan ku iraahdaa awood isku wadid dadka inta tira leeg oo saacadan laga bilaabo saan markii hore u sheegay dadku way qaybsan yihiin waa pro government against the government iyo group kale oo dadka xoolaha leh metelaya oo u shaqeynaya sharikadaha qaadanaya hadhowta contractiska iyo oo iyagu kala xoog badan dawladda iyo gruubyada kale isaya ka xoog badan marka qof isku hayn kara waxaas oo dhan oo qolo walba gacan saar ama la leh ama khidadooda ilaalin kara bay u baahan tahay hadduu noqdo ninka soo baxa nin gruub mucayyana ku suntan horta mishkiladii shalay nin baa baxay rag kale ay bixi doonaan baa soo baxaysa waana arki doontaan taasaa imanaysa laakiin hadduu yahay nin isu celcelin kara wakhtiga u dhiman waa ninkaas marka aqoon waa inuu leeyahay isku wadidna waa inuu leeyahay labadaa qodobba aad iyo aad iyo aad iyo aad ugu muhiimsan waxa kale oo uu u baahanayaa markaa inuu yahay nin xiriir wanaagsan la leh dhammaan guruubyada ishaya maxaa yeelay hadday qolo kale ku sumado xogaa xanuunkeeda bay ku yeelanaysaa arrintaasi lagama maarmaan bay noqonaysaa haddii qof intaas la isla helo dabcan waxyaabo kale qualities kale oo qofka maxaan ku rahdaa house speakerku uu leeyahay baa jira oo loo baahan yahay inuu yahay by himself ba good speaker inuu yahay waa qof laga maarmaan oo marka uu 275 la hadlaayo qof oo kala duwan oo aqliyad kala duwan leh oo rag iyo dumar isugu jira oo gobollo kala duwan ka yimid qancin kara hadalkiisa ku qancin kara maxaan ku iraahdaa muuqaalkiisa ku qancin kara aqoontiisa ku qancin kara qofkaasna waa inuu noqdo marka calaamaadkaada ugu muhiimsan inta looga baahan yahay qofka speakerka Sheekh Aadan Maxamed Ciise Gaadaale waxa uu marar badan ka qayb qaatay arrimaha ku saabsan midnimada Puntland iyo sidii wadajir looga shaqeyn lahaa shacabkuna u noqon lahaa mid isku duuban qabiilka madaxweynuhu uu soo jeediyo reer nugaaleed oo yaan dagaalaydin gelin iyo wax noocaasa horta Puntland anagu haddaanu nahay dadka reer Puntland marka koobaad muslim baana mar labaadkana Soomaali baanu mar saddexaadkana reer Puntland baanu nahay kulligaya manihin reer mudug
iyo reer nugaaleed iyo reer bari iyo reer sool luqadaasi naguma habboona madaxweyne nin soo noqdana kuma habboona nin caaqilana kuma habboona